beenta dadka beenta sheega beenta daraasadaha markii la sameeyey waxa loo kala sameeyey darajooyin qaar ka mid ah halkan aan soo taxaya noocyo badan bay noqotay beentii de marka daraasadaha lagu sameeyey waxay noqotay normal lying wax la yidhaahdo kiska caadiga prolific lying pathological lying compulsive lying kala daran okay markii daraasadaha sameynayeen dadku bal adiguna dadka taqaanid dee halkii gelayan soo sheeg nooca taqaanida kugu farbatay daraasadaha markay sameynayeen siday u kala qiimeeyeen waxa weeyaan qiyaasta beenta inta la sheegayo taasna sax maaha dee okay waayo iyagu waxay ku qiyaaseen normal lying waa qof ilaa 3-5 beenood maalintii sheego iska sahlan waa normal lying okay ma diideyno tusaalayaal haddii laga soo qaado normal lyingka kaad cid muxuu ahaa tusaale anaa jeebkayga kala soo baxaye waa lagu casumay meel baa lagaa casumay ma rabti inaad tagtid meesha been baad kaga yara cudur daaranaysa ismaad lahayn cid waxyeel laakiin shucuurta dadkaasaad dhowraysay inaanay u arag khalad iyo meel ka dhac waxaana isla siyar uga baxun meesha waa been baad sheegtay laakiin waxaa lagu qiyaasaya waa iska normalka sahlan maaragtay cid ku dhibaatay ismaad lahayn waxbaabaad itaalka ku ilaalinaysay iyo shucuurta dadkaad ku badbaadinaysay beeno kalaa jiro kuwaa ka yara daran okay been baa jira aad ku qarinaysid wax xun oo aad samaysay taasi ma fiicnaade okay laftigeeda qof kale lamaad baxsanayn doorka laakiin naftaada ayaad la baxsanaysay waa beenuun okay beentuna markasta islaamka markaynu diinta eegno nifaaqay galaysaa qofka beenta sheega waa munaafiq period layskuma haysto taa pathological liar waa markay ku fogaato sheekadu ee uu qofkii beentiisu intay badato aanu qofku wuxuu rabo inuu yidhaahdo aanu maskaxdiiba kusoo rogrogayn ee beentu kasoo horeyso wallaahi waan arkay anigu dad caynkaasa dad haddaad wax weydiiso umama baahna inay been sheegaan maalaayacnigay beenka sheegayaan maalaayacniga why because beentii ayay maskaxdoodii la qabsatay okay dadka maxaa ku keena xanuunka noocaasa ee wax kasta beenta ka sheegay beentii la noqotayun iska sheeko runtoodii iyo beentoodii baan kala saari karayn noocaas anigoo arkay noocaase waxa laga yaaba dadkaas xanuun bay ku noqotay xun beentu waa wada xanuun darajo kasta ay marayso yaraantoodii baa laga yaaba dadkaasi inay